munaasabadan ayaa ahayd mid bulshada degmada Xarfo uu horkacayo maamulka degmada ay ku muujinayeen weyneynta iyo dabaaldega 22 guuridii ka soo wareegatay markii dhidibada loo aasay dowladda Puntland ee Soomaaliyeed sanad waliba 1 Agoosto ayaa ah mid shacabka reer Xarfo guud ahaan shacabka reer Puntland ay si weyn ugu dabaaldegaan waxaana sidoo kale dabaaldega qayb ka ah ciidamada ammaanka oo gaada ka ciyaar iyo bandhig cududooda kala qayb galay xuskan maalinta shacabka isugu soo baxay halkaasi gudoomiyaha degmada Xarfo Cabdifataax Macalin Daahir iyo ku-xigeenkiisa Cabdullaahi ayaa halkaasi shacabka kula dabaaldegay xuska 1 Agoosto ana ugu mahadcelinayaa sida qiimaha iyo qaayaha leh ee bulshada reer Xarfo ay u muujiyeen dareenkooda iyo shucuurtooda iyo rabitaanka dalka iyo dadkooda iyo maalintan habka ay u maamuuseen aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ka soo qaybgalka wanaagsan iyo hanaanka quruxda badan iyo habka isdhegaysiga iyo sharafta ay ku dheehan tahay iyo in allaale iyo intii halkan khudbadihii qaaliga ahaa ee taariikhiga ahaa ee taabagalka ahaa ee dhaxalreebka ahaa ee halkan ka jeediya taariikhdan iyo xuskan maanta iyo kuwo kale oo ka tiro badan oo aanu Soomaali la leenahay oo Soomaali la wadaan in ay tahay in loo baahan yahay inaanu gacanta ku hayno in aynan siibin dhanka kale waxgaradka iyo haweenka degmadaasi ayaa si weyn u muujiyay dareenkooda farxadeed ee maalintan xuskan ayaa sanadkan si weyn looga dareemay guud ahaan Puntland oo Xarfo qayb ka tahay waxaana bulshada halkaasi ka hadashay ay bogaadiyeen 22 sano ee ummadda reer Puntland ay ku naaloonaysay barwaaqo iyo nabad waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladan quruxda badan oo si sharaf badan loo soo abaabulay oo ku saabsan sanad guuradii 22aad ee aasaaska Puntland dowladda Puntland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii caawa waxa ay ii tahay habeenkan dhashay oo kale sababtoo ah waa habeenkii ugu horreysay oo kale oo aan Xarfo ku arko xaflad intaan leeg saan u qurux badan ka soo qaybgalayaasheedu ay runtii ay yihiin dad diyaarsan aad ayaan ugu faraxsanahay sanadkan sanadkiisa kale mid aan ku gaarno bash barwaaqo iyo nabad marka Puntland الحمد لله كل لواتكي كسو وريت أساس Puntland waxay barwaaqo iyo nabad iyo horumar bay ku gaadhay halkan waxaan uga hambalyeeynaa 1 Agoosto oo ah sanad guuradii 22aad ee ka soo wareegtay asaaskii dowladda Puntland waxaa la aasaasay burburkii dowladda Soomaaliya 7 sano ka bacdi Agoosto markii la dhaho waxay anaga noo muujinaysaa inay noo tahay maalin qiimo badan oo aan halkan ku soo koobi karin ammaanteeda waxay naga mudan tahay iyo sida aan ugu dabaaldegi karno Yusuf Maxamed Axmed Universal TV magaalada Gaalkacyo